بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa maalin kale maanta waxaan u ballansanahay mowduuc kale oo qiimo badan oo ka hadlayo qaniinka maska maxaan ku caawin karnaa qofka ay qaniintay maska ama uu qaniinay mas sida aan ognahayba daqiiqadaha ugu horeeyo qofka markii uu maska qaniino waa daqiiqadaha ugu muhiimsan ee qofka badbaadadiisa laga shaqeeyo haddaba waxaan ku siin doonaa ilaa 5 talo oo waaweyn oo ka anfici doonto in qofkan agtaada lagu qaniinay ee maska uu qaniinay in aad wax u qabato inta aan la geerin xarunta caafimaadka sida isbitaalka ama goobta caafimaadka kugu dhow marka ugu horeyso waa inaad qofka la qaniinay aad dajisaa haddii uu naxo ama dhaqdhaqaaqiisa oo bato ama uu bodboodo ama maaragtay waxa weeyaan iswaalwaalo waxay keeni kartaa in sunta ay si dhaqso leh ku gaarto wadnaha jirkana u faafto waxaa qasab marka in qofka dajisaa adi haddii uu ku qaniino maskana waa inaad isdajisaa maxaa yeelay isdajintaadu waxay caawinaysaa in suntii aysan sii baahin lambar 2 ha dhaqdhaqaajinin lugta ama gacanta meesha laga qaniinay dhaqdhaqaaq looma ogolo waxaa la rabaa inay lugta ama gacanta meesha la qaniinay inay dhaqdhaqaaq la joojiyo oo maaragtay waxa weeyaan nasiino la siiyo waa in sidoo kale lagu duubaa maro lugta ama gacanta waa in lagu duubaa maro kadibna lala ekeysiiyaa wadnahaaga tooskiisa tusaale ka qofka lugta laga qaniino in la jiifiyo oo waxaa la rabaa lugtiisa meesha la qaniinay iyo wadnihiisa inay sinaadaan lama ogolo in lugta kor u qaado adoo xanuunka sheeganaya inta dhax lugta kor u qaado lama ogolo sidoo kale lama ogolo intaad fadhiisato kursi inta ku fadhiisato lugta raaracisona lama ogolo lugta la raaraci lama ogolo in kor zaid loo qaado lama ogolo waxaa la rabaa in ay ahaato mid la siman wadnahaaga sidoo kale talada kale waxa waaye waxaad ka bixinaysaa wax walba oo farta ku jiro haddii gacanta tahay ama saacad u xiran tahay haddii lugta tahayna kabaha kale waa ka siibaysaa waxyaabaha lugaha lagu xiro haddii wax lacala uu qof ugu xiran yihiin waa ka furaysaa haddii xarig ugu xiran yahay xariga waa ka furaysaa sababtoo markii qaniinka uu imaado ka bacdi waxaa imaan karta inay barar u yimaado bararkaasna markaasi suunkii saacadda ama suunkii maartay ama faraantiga wixii ku jiray inuu la barro hadhow kan laga bixin waaya dhici karto marka haddaba markaas si dhaqsi leh ugu bixi wixii markaasi ku jiro gacantiisa ama lugtiisa oo la qaniinay si bararka oosan hadhow kale u saameynin 4 nadiifi meesha qaniinka meesha waa laga qaniinay lugta ama gacanta biyo nadiif ayaad ku nadiifinaysaa dhaawaca markaad nadiifisana waxaad saaraysaa maro nadiif oo aad hubtaa saaraysaa talada shanaad oo ugu dambayso ee talooyinka ugu waaweyn waxa waaye waa inaad raadsataa bantaajo oo aad ku duubayso dhaawaca ama meesha lugta aad ku duubayso sidaad ugu duubaysaa haddaan kuu sheegayaa waxaad ka bilaabaysaa duubka meesha qaniinka uu ka dhacay meesha la qaniina ka bilaabaysaa kor aad u wadaysaa ilaa iyo kor aad geynaysaa haddii uu qaniinka tusaale kale shaashada laga qaniino shaashada ka soo bilaabaysaa ilaa lugta kore bowdada keenaysaa kor soo waday bana duubka sidoo kale waa in ay adkaato marka dhoojin inuu ku dhoojisaa rabaa dhoojintaasna aysan ahayn dhoojin aad weyn oo zaid lama ogolo iyadana in zaid loo dhoojiyo taasoo keeni karto in xididada ay kala xirmaan si dhaqsi leh u keen isbitaalka si marka loo daaweeyo joog marka hadda halkan waxa marka taagan tahay isgoys waay waxaad ogaataa 6 shay oo dadka ay sameeyaan oo qofka la qaniinay ku sameeyaan laakiin qaldan hadda qabso dadka waxay sameeyaan intay jeexaan dhaan sunta ka soo miirayna waa qalad waaye ha sameynin dhaawac ha u sameynin meesha laga qaniinay had si dhaawicin adigoo rabo inaad sunta soo jiidid ama soo nuugtid ama soo bixisid sidoo kale caadi ha u nuugin lama ogolo in aad afka inta geliso aad soo nuug suntan soo nuugayo tufaa dhahed iyadana waa qalad dadka ay sameeyaan dadka qaar way sameeyaan laakiin waa qalad qodobka saddexaad waxa waaye ha saarin baraf dadka qaar waxay sameeyaan intay baraf soo qaadanay saarayaan meeshii oo nabarka ahayd ee baraf soo saarayaan lama ogolo iska ilaali ha sameynin sidoo kale ha isticmaalin maro dhiig kala xirayso badanaa waxay sameeyaan lugta meesha dhaawac oo lugta oo ka qaniinay maska ma korkeeda ay maro shaati ahaad ama maro kala ahaad adayga intay qabtaan ama laastig ama xiriga qabtaan xoog ugu dhoojiyaan ayagoo isdhahayo dhiig hoos ka imaaday iyo san kor soo aadin laakiin waxa ka imaan karto
halis kale ma la ogolo in laga xiro meesha la qaniinay korkeeda in la xiro lama ogolo qaab gooni ah loo sameeyaa waa qaabka ay soo sheegayay bantaajada waxa laga soo bilaabayaa meesha la qaniinay lafkeeda la duubayaa ka bacdi kor loo soo wadayaa ilaa iyo waxa la keenaa lugta korkeeda kore ama gacanta korkeeda kore la keenaya laakiin lama ogolo qaabka hadda Soomaalida ay sameeyaan ah in qofka meesha lugta laga qaniinay korkeeda kore laga xiro oo la dhoojiyo xoog loo dhoojiyo dhiigga kala xiro waxaas waa qalad dhibaato ka weynana ka imaan karto oo inta ka cararaysid ka badan ka imaan karto sidoo kale ha siinin dhaqameed waxyaabo oo dadka iska aaminsan yihiin waxaas kala la sameeyaa neefa loo qalaa barura la siiyaa hilib u qal cadiinsi waxaas macnaha waa wax dhaqameed caadi iska ah lamana ogolo looguma talagelin halkeedii ma ahan waxba kama qaban karto dhaqameedka alaabtan kale joojiya sidoo kale qodobka lixaad waaye ha isku dayin inaad maska soo qabato libaax iska egsid maskaan raadina ha soo dhihin maxaa yeelay ninkan uu qaniinay adna wuu kugu dari karaa lixdaas talo waa lix talo oo maaragtay muhiim ah iskan ilaali hana samaynin dadkan way sameeyaan lix talo oo qaldan waay oo haddii qofka uu sameeyana dhibaato kale ka soo gaari karto ama dhibkii hore ma ahee dhib ka weyn oo ka imaan karo ha samaynin calaamadaha haddii aad ku aragto calaamadahan si gaar ah isaga taxadir waa halis suntiisa maskaas waa sun halis badan haddii qofka la qaniinay aad ku aragto barar zaayida oo meesha laga qaniinay ah waa halis ogow si fiican ugu taxadir si dhaqsilna qofkaas u qaad u gey goobta caafimaadka kugu dhow haddii aad ku aragto neef qabatin haddii aad ku aragto neefta inay ku istaagayso qofkaasi si dhaqsil ula carar haddii dhiigbax uu keeno qofkaasi mararka qaar waxa dhici karto in dhiigbax meeshii la qaniinay ku dhacdo ama maaragtay afka uu ka dhiig baxo ciridkii waxaas ka dhiigo ama mararka qaar dulduleelada qaar jirka dabada aad meel kale aad dhiig ka imaado maxaa yeelay sunta qaar waxay keeni kartaa in dhiigga uu daato oo dhiigbax ay keentaa marka haddii dhiigbax ku aragto sunta maska inay keentaa laga yaabaa si dhaqsil ula carar maxaa yeelay waxa laga yaabaa in dhiigbax uu dhinta laga yaabaa qofkaas haddii tabardaro zaayid ku aragto oo lidida socdo oo baralays oo la socdo lugtii baralays ka noqoto ama gacantii iyo lugihii wax dhan baral ay dhacaan baralays noqdaan iyadana halis waaye si dhaqsile isbitaalka ugu gaarsii sidoo kale hadda ku aragto matag zaayida xanuun daran iyo waxa weeyaan xanuun loo adkeysan karin oo zaayid hadda ku aragto si dhaqsi hadahinin ka gaarsii isbitaalka talooyinka aan ku sii shanta hayna adigoo haysto ku dhaqmaayo sameey haddii aan soo koobno taladooda waxay ahayd qofka in la dejiyo talada waxay ahayd lugta la dhaqaajinin taas waxay ahayd in wixii agaba laga siibo sida soonka iyo faraantiga iyo saacadda laga siibo talada afraad waxay ahayd in la nadiifiyo dhaawaca mar nadiif la saaro talada shanaad ugu dambaysan waxay ahayd in bantaajo lagu duubo oo si fiican loo duubo la adkeeyo laakiin aan dhiigga kala xirin si dhaqsi in isbitaalka loo keenana waa qodobka lixaad ama qodobka ugu dambeeyo ee talada ugu dambeysaan bixinay waxaa ogaataa marka maska qaniinkiisa aad ay ugu badan yahay wadankeena Soomaaliya maadaama aan leenahay reer guuraa reer baadiyo beerley dadkaas oo dhan marka masaska way la tacaamulaan sababtoo beerahana masaska uga galaan baadiyahaasna wuu joogaa oo aad ugu badan yahay xoololeyda ku badan tahay haddii aad aragto dhibaatooyinka noocaas ah si aysan u dhicin iska ilaali talooyinka waxyaabaha lagu diidan iska ilaali oo Soomaalida badan ay sameeyaan waxyaabaha lagu farayna sameey 5 qodobna wuu amray 5na waa lagu diiday 5ta lagu amray sameey 5ta lagu diiday ama 6 lagu diidan kaar saas weeyaan insha Allah waad mahadsantihiin sida wacaanayd meesha noo soo gaarteen ku soo dhawaada kanaalkan meel dheer gaarsiiyo channelka dad badan laga yaabaa baadiye iska ah inay ka faa'iideysan lahaayeen haddii aad gaarsiin lahayd haddaba gacantaada aysan ku ceelin share garay gaarsii dadka kale ee u baahan inay arrinkan wax ka ogaadaan mahadsanid